arrintan uu istaagiday mudan tahay waa runtiis doorasho dadban wax la yiraa marba meelay soo martay adeer cali iyo adeer calasow mar ay luuq inta galaan ay hebelna waa xildhibaan hebelna xildhibaan maaha ay dhahaan ayay soo martay waa ka soo gudubnay waxaan dhahnay war doorasha la yiri wuxuu yahay hal is doortay bal wixii haday qabiil yihiin xataa qabiilka dhexdiisa bal fursad ay ku tartamaan hal siiyo qabiilkii hadana lama wada gaar la yiri wakiilo qabiilka laga sameeyo konton qofood konton iyo kow qof ha codayso siyaasiyiintuna konton iyo kowdaas qof ha qanciyaano yaan soo gaarnay waa ka soo gudubnay ayaan dhaweyto waxa la yiri 100 qofood hal 101 yaa 101 hal la gaarsiiyo oo isla qabiilkii dhaxdiisa maalna away approach kuna sax ma ahayn intaba wixii la rabay ma ahayn approach kuna sax ma ahayn oo intii wixii la rabay ma ahayn haddana ayadaas lafsadeeda dhaxdeeda haddana cilado waa ka jireen tii oo 2016 waa ka jireen tanna waa ka jireen hadda oo la soo dhaafo dhaweyd kala duwanaansho intuu leeyahay ka hadlamin maanta marka 2026 aniga waxa iga go'an inaan horta hoolki u noqonin si aan aniga hoolki ugu noqonina dadka hoolki dadka ku dooro lahayne waa inayna u noqon jufo hebelay maxuu ahay wakiiladiina kaana inaanay u noqon waayidane waa ku tala jirnaa qorshacada dawladda uga degan dalkan qof iyo cod ayaan dhaweed waa la isku dayay dadaal badan iyo dood badan wax waa laga sameeyay laguma guuleysan asbaabtu wax kasta ha noqotee markaan daqiiqada u dambayso doorashada mugay sanad ka dhiman tahay iyo mugay 6 bilood ka dhiman tahay iyo bilaabe mayne haddaan bilaabaynaa maantaan bilaabaynaa geedi socodkaas 2026 qof iyo cod dadkan uu ku gali lahaa qof iyo codku sidoo u ekaana modelayaal badan oo qof iyo cod ah jire keen qaadanayna waxa soo dhamay waa sheeko noo dhiman laakiin 2026 waxaan rabnaa dalkan federal institutions in lagu soo doorto qof iyo cod hadii aliira marka taasi intaasaan soo koobay madaxweyne aad u mahadsan tahay dadweynaha sharafta leh madaxweynaha gunaanadkiisii iyo ereyga ugu dambeeyay ayuu noogu xiri doonaa inkastoo aan waqtiga xogaa ka dulmarnay waan ka cudur daaranayaa mar kale iyo mar kale inaanan waqti u wada helin laakiin waxaan rajaynayaa in la joogteeyo shirarka noocan ah oo sanad aan lala sugin la bilayo haddii ay wasiirro sameynayaan iyo haddii uu madaxweynaha sameynayo si su'aalo la'aan ay u noqoto 2026 madaxweyne soo dhaweey erayga ugu dambeeyay amaasanta mar kale aad iyo aad ayaan aniga ugu mahad celinayaa wujuudan quruxda badan faraha badan mathalaya bulshada Soomaaliyeed dhamaan gabdhayo wiilalba waa ku mahadsantiin waxaan rabaa gunaanadkayga wuxuu yahay